laakiin maamulka hoose waxa weeye waxay gaaraysaa ilaa meesha ugu hooseysa heer tuula taas wax xun ma aha walaalayaal Soomaaliya way tagtay waxaan idin sheegayaa haddii dadkii hore ee SYL ka ahaa oo 15 May aan xusi doonno dadkii dhalinyarada ahaa oo 13 ka ahaa wixii ay soo qabteen hadda intaan hor taagan waxay ballan qaadaysaa dalkaani inay hormariso inay horumarkiisa ka shaqeyso inay midnimadiisa ka shaqeyso inay Soomaalinimadii sharafkii soo celiso hadduu Ilaahay yiraahdo laakiin kama shaqeyn karno idinkoo qaybsan idinkoo wali ciil u qaba qabiil dad walaalana dad isdalaana dad isku dhaqanana dad isku dhiigana aan ka fogaano waxyaabaha foosho xun oo dalkeenni soo gaarsiin meeshuu taagan yahay midnimada waxaan ii sheegayaa haddaanu 3 bilood iyo dahradii yahay waxa la ii soo dhaweynaya caalamka aad arkaysaan sida qurxoon waa idinka adduunku wuxuu arkayaa dalkaan inuu istaagay oo majuur noqday oo midoobay yuu arkaa iyo sida electionku u dhacay iyo sida u taageerteen dawladnimada weeye waxa la ii soo dhaweynaya aniga ma waxa la soo dhaweynaya waa idinka weeye haddaad doonaysaan adduunka inaad ka heshaan sharafkaas iyo ixtiraamkaas iyo qadarintaas qabiilka hala dhaafo qabyaaladda hala dhaafo annagu waxaan ka ballan qaadnay caawa waa aragtaan meeshaan aan wada taaganna wada aragtaan ballan ilaahay waxaan ku galnay inaan daniina ka shaqeyno ma maqlaysaan